muddadii aad xiriirka lahaydeen adigiisa in bulshaduna ay sheegayso iyaduna ay sheegtay in lacag ay jirtay aad ku handaday oo aad tiri hadii aad lacagtaasi bixin weydo muuqaalada iyo sawiradaasaan soo bandhigaya arintaasi maxaa ka jirayada waxa jirta lacag $22,000 oo la carabaabay oo dalbatay ma jirta lacagtaas saan horeba kuugu sheegay waxaan kala soo fariistay ma diyaar wahay wixii aan Safiyo ka maqlay inaan ka jawaabo taas waligeed carabkeeda kama hayo laakiin marka cid kale oo bilaadan oo meel ka hadlaysana waqtiina fulumiyo ama waxaan munaasib ahayn ama waqti xaadirkan bartankeeda ama cilmi ay sameynaysaa ma jirto waxgaag halkani waxa ku sugan barbarkayga Cabdi Ciise Cajuun oo runtii ah abwaan daayar kana mid ah dhalinyarada magaalada Hargeysa hadda ku nool Cabdi sideen loo wada soconay baraha bulshada maalmihii ugu dambeysay waxa haystay sawiro iyo muuqaalo laga duubay fanaanadeena qaaliga ee Safiyo Tusmo oo runtii ah hooyo Soomaaliyeed isla markaasina lagu soo bandhigay baraha bulshada taasi oo muran fara badan dhalisay bulshaduna kala duwan ay uga daran celiyeen bal ugu horeyn waxaan jecelahay maadaama adigu aad tahay eedeysamihii loo soo jeediyay inuu falkaasi ka dambeeyay oo sawiradaasi soo dhigay bal qaabka ugu horeeya ee aad isku barateen adiga Safiya iyo xiligaad isbarateen inaad noo sheegto sagale horta walaal aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa aniga Safiyo waqtigan isbaranay hadda waxaan isnaqaanaa muddo ku dhow 2 sano waxaan isku baranay suugaan silsilad ka bixi jirtay channelka Cabdi Askarati oo isagana halkan aad uga salaamayo oo silsiladii ahayd habliyo xishoodkii xageebad ku xorteen ayaduna hees ku lahayd aan hees ku lahaa marka waqtigan isbaranay waqtigaas ay ahayd muddada hadda laga joogaano waa 2 sano 2 sano wahagaag goobtii ugu horeeyay isku barateen ما إنه تلفون كود هذا الله سينا نشرقنا أنت هذا تلفون كود هذا لنا لكن نشرقنا أنا يدو حتى سوقها الرسا حتى سوقها الرسا أركتي أهان هذا سوقها الرسا لكن حرير واحد كو حريري شرتين تلفون كها لين على تلفون كها واتساب كم ماسنجر كأنت بقول كود هذا الجري لكن سلا يفعلنا نشرقنا ما أنت سوقها الرسا قاب كذا حريري شرتين نسال شيكتي وحوها قاب سوقانات أن ها مركها يعني هي قاب كان سكوبر النادي ودي سي صارت سكوبر النادي أول مرة واحد هيد سوقان يفنن سكوبرنا صحيح maxaa intaas ka sii dambeeyay intaas waxa ka sii dambeeyay aniga Safiya waxaan dhex maray relationship iyo sheeko iyo xiriir dan halkaas xiriirkaasi intee lag buqaat wallahi horta waxaan soo xiriirinay sheekaysanay muddada shaqaanay waxay ahayd 2 sano laakiin waxaan oran karaa muddada sheekaysanay ama yani xiriirka lahayn hal sano iyo dhowr bilood meel hawo noqonaysa waxaad markaynu intaas ka nimaadno waxa timid magaalada Hargeysa qaab nooceed ku timid magaalada Hargeysa halkeedsa ka timid marka hore waxaan ka yimi magaalada Cabdi wadanka Cabdi gaar ahaan magaalada Qaahira hadda wadanka waxaan joogaa adigu muddo 9 bilood meelahaas marka sababta ku yimi iyo arrimahan ku yimi mid aniga Safiya na dhex maray ama aan isku weyn ka wada soconay sida dad badan oo xooggan noo hibay ka dhigsan bay ahayd saasoo waxa jirtay in lagu xidhay magaalada Hargeysa CID-da ama sirdoonka lagaaga yeeray bal sheekadaasi siday ku dhacday iyo qaabkii u dhacday baan doonayaa inaad nooga waranto sheekadaas horta dadku inta badan waxay ogyihiin xariga Safiya laakiin dadka in yar oo adiga iyo dhowr qof oo kala aba inaan anaguna la xidhnaa og laakiin sheekada hadan bulshada u biyaamiyo maalintan heestan ismuutiisay qalinliye maandeeq ay wada qaadan aniga Safiyo doonay aan ka soo dareernay 5 galabnimo karan hotel meelaha ayaa markaan meesha ka soo dareernay waxaan isku weynaa xagga suuqa isku nimaadno deetana antii telefonkeedii baa xidhmay anagu isma naarag 9 habeenimo soo haashay guriga waxay sheegtay in iyadii Safiyo la xidhay xagee la idinka qaaday baan ku wuri markaa waxay ku tiri home cable ka horsan laga qaaday indhahana laga xidhay aniga Safiyo markii dambe aan indhaha ka xidhan baa la soo celiyay Safiyana wala la xidhay عيد مدينة كيسي ميعين ميركين مركا واضح هذا ميل كره ما قرأنا ما قرأنا بس ماشي ملهى دن وحن كل هذا أنا هذين يوم إن نسوه له إن سكودينا سلك دحانمي سلك دحمر هانمي وحلي يقول كم تشرتو كودبور بنتجي مركان كودبور تقول كل قبل اسمه مش بقول إنت ليش شو بين أيوة حلي قاعد تلفون كول يقول سو عبد العزيمتي ها تلفون كانوا بعنا لأنه سؤال عن سكرت فيديو إحنا نغطي قف حلم بابنا سؤال عين حتى تلفون كيجا لقربه كذب أن وحلي يقول تلفون كاجا وحاو بهان CID ده
وانا امر انغا naga sareeyo haye telefonkaygi waan siiyay waan deetana ka tagay haye inantii markaa la hadlo waxaan ku oranayo oo fiima aan la hadlo waxaan ku oranayo gabadhii waxa la igu yiri xagaasay ku xiran tahay laakiin anigu ma arag anigana telefonkaygi baa laga qaaday haye labadii habeenimo mar ay ahayd ay haddana inaan soo waxay ku Safiyo tii xanuunsan in dawooyin iyo alaabo geeyno haye dan inantii waxay ku timi guriga anigoo la fadhiyo Cabdi Naasir Macaan Ciidid Cabdiraxiin Axmed Carab oo isagana halkan aad uga salaamayo anigoo xir badana kadib iyadoo gaariga watay gurigii ugu timi waxay ku timi ka maarmi maayo inaad raacdo ama aan Safiyo dawada u geeyno tii xanuunsan okay waa sax baan ku wari waan suraacnay markii aan salgid ku noqday markii labaadna waa la xidho wax lagu adigna waa lagu baahan yahay soo habeennimadii halkii waan ku hoyday inantii iga soo noqotay baan u qoray fiimaha ahayd baan u qoray markii xaafadeeda waxaan ku xaafadeeda iyo reerkiisa ugu sheegnaan xidhanahay dan subaxii markii ugu bari baan indha ka xidhan lay qaaday CID da leegay CID da maanta ma ku xidhnaa shantii galabnimo markay ahayd baa la yeeray dan waxaan ku wari maxaan ku xidhanaa waxa la igu yiri lambar aad leedahay adigu telefoonada oo kugu qoran ayaa lambar aan raadinayay muddo dhowr sano ah soo wacay labada lambar markaan anigu sitaaba soo kan gabadha u dhigay baan weydiiyay waxa la igu yiri waa ka gabadha u dhigtay gabadhaasi waa Safiyo marka okay marka lambarkan xilliga la soo wacay xilliga anigu sitiiba mise waa xilliga iyadu sidatay waqtiga lambarkan aan raadinaysan ay contactiga la sameysay marka waxa la igu yiri waa inta iyadu sidatay dibas hadaba iyada la xiriir baan ku wada dan waxa la igu yiri waa sax waxaan u baahnay gmail-kaaga يعني dadka qaar bararkay bara bulshada ku soo qoriyay ninkan uu istifaaciyayo hadii la wareysto hadalka runka ma sheegayo CID da iyo ciidanka qaranka iyo maanta hargeysan jooga wax been laga sheegi karo ama aan yani waxaan la igu sameeyay ama falan la igu la kicina ka sheegi karo maaha dan waxa la igu gmail-kaaga aan u baahnay iyo baasurkiisa dan waxaan weydiiyay maxaa gmail-kaaga iyo lambarka la soo wacay gabadhu seeto iskaga xidhan waxa la igu hawlan anagu u baahanahay telefonkaaga waad ka tagaysaa adigana waan ku sii deynaa gmail-kaaga saxda ah isticmaasho noo sheeg laba nin baa markaa wareystay labada nin gmail-kaaga baasurkiisa weydiiyeen sidii baan ku siiyay waan tagay marka saddex cisho marka la iga hayay ayaan soo noqday deetana waxaan u tagay Faisal Xiis waxaan ku dhahay telefonkayga waa la iga haystaa dimension laga shaqeyn jiray macna la iga qaadiyo qaab la iga haystay midna ma garanay hadii aan dambi leeyahayna nimankan ay sheegan waxay telefonkayga ku haystaan hadii kan la soo siiyaan inankiiba marka la hadlay kiiskayga gacanta ku hayay wuxuu ninkan haduu kiis leeyahay ana xiraya hadii kan telefonkiisa soo siiyay anoo yimaado baa leeyahay berito la galanoodkii markaan tagay waxaan u tagay waxa la dhibay waxa la igu niyo si fiican baad yeeshay si wanaagsan runta noo sheegtay telefonkayga oo la restore gareeyay tan waxaan ku maxay ku dhacday telefonkayga la restore gareeyay hadii waxyaabo adiga ku anfacayo kiis ku ay aniga kiis ugu ay ku jiraan maalinta soo qaato cadeynay iga dhigto deena maxkamadda ugu geysan sababta keenaysa in telefonkayga la restore gareeyaa maxay tahay tan wuxuu ugu niyo arrin si qalad ah u dhacday weeyaan okay telefonkayga si qalad ah u dhacdo email-kayga in la bedelo oo la guba iyaduna mid si qalad ah u dhacday baan ku dan waxa la igu waxaan ku balan qaadanay xogtaada inaan ku soo celino arrinkanna waa mid qalad kugu dhacay marka waxaan la yaabay bay igu noqotay waan iska soo baxay sidii baan ku yimi arrinta xalagaygu iyo ka Safiyo saas waa xaaladda ka marayna taasay ahayd وحاجات dadku waxay inta badan isweydiinayaan oo maxaan idhaahdaaye lagu soo celinaya oo waliba anagoo de hooyooyinkii Soomaaliyeed kamida aan aad uga dareen celinay inaad adigu ka dambeysay Safiyo sawiradeeda lagu baahiyay baraha bulshada waliba muddo in badan oo 2 sano ah aad Safiyo lacag kula baayactamaysay $2,000 oo xataa jirtay sida la sheegayo inaad meel magaalada ka baxsan intaad la tagtay aad bastoolad madaxa kaga qabatay oo tiri haddaad lacagtaas bixin weydo maxaan idhaahdaaye naftaada sawiradana waan baahinaya sawirada inaad soo dhigtay ta lacagta aynu dambaysiinay maxaa ka jira ni horta arrinkaas waa arrin aad iga yaabiyay yani mudbayna Soomaaliyeedu cid waliba dhaqan bay leedahay yani horta ariga iga suurtooba iyo waxaan yeeli karaa midna maaha hablaan la dhashay hooyo ay dhashay haddana anigu qabaa yani midda kale qofka doonaya qof inuu ceebeeyaa isagu iskama bilaabo qof adduunyada ceeb ku naaxa ma jiro oo yani isagu yani shakhsi bilaadan oo dhibka raaxa moodaya ma garan karo de meel ku nooliyay ama dadka qeylinayo inuu ku jiro laakiin qofka doonaya inuu qof ceebeeya inuu isagu iska bilaabo wallahi ma garanayo meel ka dhacday meel ugu arkay toona almiina xitaa hadii yani horta wax iga suurtoobiyo waxa sameyn kara midna maaha hadii si xitaa dadku waxaan ay isweydiinayn haddaan anigu sawiradan qofka soo dhigaya ama u bareerayahay maan garan waayin xitaa inaan wajigayga ama indhahayga ama madaxayga meel uun qariyo xitaa soo moogid marka arrinkan waxaan shaqo ku leeyahay maaha wax iga suurtoobana maaha waxaan sameyn karana maaha waxaan sameyn jirayna maaha waxaan sameyn doonana maaha waxaan aaminsanay shil aniga Safiyo nagu wada dhacay inuu yahay
cid kasta oo falka ka dambeysay maxaad cadeyn haysataa ama ku cadeynaysaa inaanad sameeynin falkan maadaama dadkoo dhani ay aaminsan yihiin oo ka aamineen inaad waxaan sameysay adigu sidaan horta ku sheegay aniga Safiya horba kugu sheegay waxaan nahay laba qof oo relationship ka dhaxeeyay haddii aan markaa u baahnahay ceeb aan iyada ula bareeraya inay jirto ma waayin sawir kaligeeda laakiin ceebta aan walaashay la doonayo anigu iskama bilaabeen waxgaag abwaan Cabdi Ciise waxa intaasi sii dheer maadaama ninka gabadhiisu ay tahay hugiisa oo ay tahay inaad yani maadaama hugaygi tihiin inaad noo xil qarisaan asturtaan Safiyo waxay sheegtay in gurigeedii ay ka dhax bilaamatay sheekadu oo yani adigoo ninkeedii aad ceebaysay bulshaduna waxyaabaha aadka ay uga dareen celiyeen ee looga fal celiyeen ilaa anaguba aanu ka xumaanay ay tahay naagde ama gabadh uu ninkeedii ceebeeyay oo maradii ka qaaday arintaasi maxaad kaga jawaabaysaa san horaba kugu sheegay horta ninka gabadhan ceebeeyay waa adiga horaan kugu sheegay waa ka madax banaanay oo waana ceeb aniga iyada nagu wada dhacday arrinka qabista markay noqoto aniga Safiya ma relationship naga dhaxeeyay sheeko bisayna gabadheedii ahayd relationship iyo sheeko way naga dhaxaysay laakiin qabid aniga Safiya aan isqabnay ma jirto haddii wax intaa ka duwan oo la hayaa jirtana cidii haysaa soo madhigto diyaar baan waa marka waxa leedahay wax qabiso oo meesha jirta ma jirtaba maxaad ku cadeynaysaa wallahi kulli guurku waa wax weyn Safiyo gabadh caana marka la isbursanayna wax qarsoon maaha marka la isfurayna wax qarsoon maaha marka hadda tusaalahan walaashay Safiya san anigu iyada ka maqlay ama kalibadan daawaday 3 jeer bay hadashay marka koobaad ee ay yani arrinkan laga tabsaday sheegaysay waxay sheegtay in relationship yeelan karto qof cid relationship ka dhaxaysa jirto oo relationship naga dhaxeeya jiro marka labaad wareysiga ay shiina culeysay waxay sheegtay in dad isqabayo oo jecel nahay dadkana naga dhax baxaan marka saddexaadna waxay sheegtay inay furiin dalbatay kiina ay ku guuleystay oo la furay waa isla muddo 5 cisho gudahooda waa saddex hadaloo madiinimadu u dhaweyn صح ولا لا marka hadda muhiimadda markan ku soo ururiyo aniga iyo inta wax qabiso naga dhaxeeyo oo meel loo yeelaa habeeraatay ma jiro waxagaag waxa jirtay muddadii aad xiriirka lahaydeen adiga iyo Safiya in bulshaduna ay sheegayso iyaduna ay sheegtay in lacag ay jirtay aad ku handaday oo aad tiri hadii aad lacagtaasi bixin weydo muuqaalada iyo sawiradaas aan soo bandhigaya arintaasi maxaa ka jirayada su'aasha anigu hadalka iyada kamaan maqal laakiin waxay cid kale yiraahdeen ama qof YouTube yiri ama qof kale live ka hadlaya yiri aniga waxay qosay maaha kaliya waxaan diyaar u ahay wixii aan walaashay ka maqal kaliya inaan ka jawaabo marka waxaan san waxyada ka soo baxay maaha waxaan hadda anigu jawaabo waayana maaha because waxay tiri maaha خلاص waxagaag waxa jirtay inaad baxsatay sida dadku sheegeen Ethiopia u baxsatay arinta baxsiga maxaa ka jira horta sheekadan waxay socotaa muddo 6 cisho anna sida sagalay adigu waqtiga waxaan ka maqnay magaalada waxaan ka maqnaa 22 cisho marka falku goortu dhacay iyo goorta anigu tagay horta wax isu dhooba ma yahayn marka wuxuu ma arkaa in hadal meel waayay haddaan baxsaday hadda waan iga soo noqday cidii doonaysa hay timaadadu waxagaag waxa jirta lacag $22,000 oo la carabaabay oo dalbatay ma jirta lacagtaas san horaba kugu sheegay waxaan kala soo fariistay ma diyaar wahay wixii aan Safiyo ka maqlay inaan ka jawaabo taas waligeed carabkeeda kama hayo laakiin marka cid kale oo bilaadan oo meel ka hadlaysana waqtiina ku lumiyo ama waxaan munaasib ahayn ama waqti xaadirkan bartankeeda ama cilmi ay sameynaysaa ma jirto mar kale aan kugu celiyo lacag $2,000 ayaa bil kasta ay biil kugu soo diraysaa leeyahay Safiya arinta kale iyaduna maxaa ka jira horta laba qof sheekaystay relationship dhaxaya wax way day isu dirayaan wax way kala qaadanayaan oo way magaranaysaa wax kasta dhex mari kara laakiin cadadka la sheegay iyo waxaan aniga Safiyo isu diri jiray anigu ma ogi oo $2,000 ee bil kasta joogtada hayo ama aanu kala badsano ama aanu kala yareysano laakiin dadka marka ay sheekay xiriir dhaxayaan wax way sasinaya waxay laakiin Soomaalidu cabiratay wallahi iyaga ka jawaabaya waxagaag waxa jira Facebook lala dhaxmaray imika qaybaha baraha bulshada oo daqiiqad loo soo update gareynay oo ilaa sawir aan galay la soo dhigay oo adiga ka hadlay Facebook-aasi ma adiga isticmaala
anigu facebookigi muddo 5 cisha deactive baan ka dhigay hawada baan ka saaray laakiin waa fake account iyo dad ama falow ku raadsanaya ama wax kale ku deedeeyay wax facebook hadda anigu gacanta igu jira waqti xaadirkan ma jiro hal facebook baan isticmaalaa kiina deactive baan ka dhigay hawada buu ka maqan ma jira intii ay soo baxday sawiradan lagugu eedeeyay inaad ka soo dhigtay walaashin Safiyo Tusmo wax dhibaato adiga ku soo gaadhay maxaa ku soo gaadhay nasabcay bay soo gaadhay hansabaad bay soo gaadhay qaar la waan ku dilayna bay soo gaadhay qaar la hargeysa sidoo soo noqon bay soo gaadhay yaanihi tii adigu waa yaanihi wallahi waxaan xitaa yaani hadal aan meel u haystay iyo meel u socday iyo meel ka socday min aan garanayn baan wararkayo waan dhaafiyo laakiin hadii ay tahay adiga habaar kaysa leeyayo hadii habaar tahay adiga habaar kaysa leeyahabaarayo hadii aan shabaad tahay wax qarsoon bade ma markaas u soo jeedinaysa bulshada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed waxaan soo jeedinayaa horta dad 1 milyan ku dhow ayaa baraha bulshada naga habaaray oo in badan habaartamay oo ma garanaysaa waxaan raaco Ilaahay magan ugahay inaan ummadda Soomaaliyeed iyo habaarkeeda aanu qasaarin mid Ilaahay ka aqbalo oo noqdo hadaad falkii geysatay hadii marka hadalka waan ku soo wadaayay hadii waxaan anigu sameeyay uu yahay ummadda Soomaaliyeed ee 1 milyan ku dhow ay habaartamisay waxaan habeenka caawa jecel in Ilaahay ka aqbalo waxaan geystay haduu anigu yahay inaan Ilaahay iga harin ummadda Soomaaliyeed habaarkoodaasi igu dhaco hadii kalena cid geysatay uu ku dhaco sideed u aragtaa in tabriyaha dambe waxa soo badanaya in gabdhaha la ceebeeyo adigoo kaba midaba deemka eedeysanayaashii inkastoo halkan iska difaacday sideed u aragtaa qof gabadh ah oo waliba ama caan ha noqoto ama yey noqonin in la ceebeeyo ama la handado oo la blackmail gareeyo loogu hanjabo waxaan ka hayaa iyo waxaan kugu sameyn doonaa waxaan arkaa wax aad iyo aad u foolxun وحرانا دقن كإسلام كبحسن دين الإسلام كبحسن دقن كسومالي كبحسن يعني أو واحد للتلمام واحد لقول تلمام كرعان وشرين به وحاجة مركز كسر نقلنا واحد جرتا هاس أي صفية قاده هاس تو حلا هذا هو قيقيا هاس تاسي بالقصة ده أيان شعلين النوع شكس ni horta heestaasi waxyaabo ugu badan la soo diriyay dadku ay ilaahayeen ninka gabadha san ugu hoybaad horta ummadda Soomaaliyeed waxaan sheegayaa qofna madidiisa laguma gowraco heestan horta aan iska lahaa qisada heestuna sidan ma yahayn aniga Safiyo wax naga dhaxeeyna ma yahayn waxaan taayada ka sameeyna ma yahayn waxaan iyadoo sameeyna ma yahayn waxa jirtay in Safiyo habeenada kamid la soo hadashay yani inaan saaxiibnayo oo leeyahay Khadar Fiyoore Khadar Maxamed Bakur ninka la xanka saaray oo isagana halkan aad iyo aad uga salaamayo ayaa waxa ku soo gabadh baa jirta doonaysa hees deetana qisad dhaba marka maxay u baahan tahay in looga sameeyo waxa ku tiri gabadha ninkii ay isqabeen ee hore ayaa ninku kula lahaay wuu dhibay deetana wuu furay ciyaalkii iyadoo haysta wiil kale oo Soomaaliyeed relationship dhex maray marka xagga ka eegaysay inay kaga reysato dhibtii rafaadkii kii hore soo mariyay ayaa kiina iyadoo guursan ku noqday midkii kaga daran marka wayna jeceshahay hadda qof ay ka go'aan qaadan karto ama ay ka tagi karto ma aha deeto waxay u baahan tahay in qisadeedan loo tixgeliyo hees looga sameeyo waa sax waan ku wari habeenkii horta heesta beeshka koobaad sameeyay ninkaas oo ila fadhiyay laxan ku saaray Khadar Fiyoore dan gabadha heestii waqtiga ay soo bixileed aniga Safiyo ka wada hadlo waan weydiiyay marka waxaan ku gabadhii inantii maxaa ku dhacay heesteedii oo deedna waxay ku tiri gabadhii aabaheed baa dhintay gabadha waxay igu sheegtay magaceeda in Farduus la yiraahdo I think Minnesota iyo Minneapolis labada mid bay deganay markii dambe inay Nairobi qabatay marka heestaasi waxaan naga naqusayna ma yahayn waxaan iyadoo sameeyna ma yahayn waxaan qisadayda ka sameeyna ma yahayn ee waxaan gabadhaas u sameeyay ayay ahayd sida de aniga iyo ninkaasi waa aanu ka marxaati ahayn ee walaashii anigu ma aan isloognahay waxaad ugu dambeyn fariinta diraysaa maxay tahay ugu dambeyn fariintan diraya aan rabeen halkan ka diro ama ummadda Soomaaliyeed u sheego waxa weeyaan dadku horta garba iska qaadaan waqti xaadirkan xitaa anigu imka waxaan dhibano waa ciidan dhibano waxayba garan maayo haysato aan ka ahayn dad Facebook iyo YouTube ka qaylinaya marka laga reebo hadallada de walaashii ka soo yeeran hore uga soo jawaabay laakiin Safiyo ma oran ninkana wax ka soo dhigay Safiyo ma oran ninkana ay ceebeeyay oo inta jeeray hadashay badii qof yaani sida Ilaahay ku ogeeyay ma xaqo tahay u hadlaysay baheed waan uga mahad celinaya laakiin ummadda le waxaan baa dhacay iyo sidan baa dhacday waxaan leeyahay wax kulli hubsima hal balastaabay Soomaalidu tirada qof kasta iyo wuxuu qabanay Ilaahay baa marka waligiin yaalihiin dadka waxaan ku weenayaa inaanay gar qaadin iyagoo on labadii qof labadaba arag deyntaas uu gadhay aad iyo aad noo salaamay kii soo caayna waan salaamayaa kii soo habaarayna waan salaamayaa
كي دفاعنا وسلامية دمان وضدك يجي كل هذه دي مقالة من سنين أو يعني فكرة غلطان دي اللي قاعد أدعيه يو أنتي كسحانة هي ستي دي أنا جالس عوتي لبضو ما توضدك يجي وسلامية وهجاج بدو ما هتصنت هاي كاسنا وحوها عبد عيسى عجون أبوان كدا ذير ونكور السنة أرميه براها بالشدة قبصدي ولاشين صفية تسمو تانية كلانتي دم بس دا سينا بتقلي أدبو ما سنتين